بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد إلهي سبحانه وتعالى nicmooyin badan ayuu nagu galladaystay nimcooyinkaasoo kuwa daahir iyo kuwa baatinaba leh wax la koobi karana aan ahayn rabbina uu qur-aanka ku tilmaamayo laba aayadood wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddaa isku daydaan inaad tirisaan waxa ilaahay nicmo idin siiyey ma koobaysaan baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkaa waaweyne ilaahay ina siiyey ayaa haddana kala mudan iyana oo kala mudnaanshiya leh oo kategori kala sarrayn leh qaarkood haddaad weydo waa laga yaabaa badiilkood inaad hesho laakiin nicmada ugu weyni ee rabbi subxaanahu wa tacaala in badan qur-aanka ku manno sheeganayo waa nicmada islaamnimada iyo diinta iyo iimaanka اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما رب سبحانه وتعالى وددكيس الصالحين تاوغم من الشيغانيو ومن يطع الله والرسول وحو كاسلا كوحي هبال يري محي مع الذين أنعم الله عليهم كو إلهي النعمي مكو حول لسية وحاسبة مايا إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامين نبيه صديقين شهداء صالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا النعمة وقوين القرآن كور رميا والنعمة سي إيمانك يا إسلام نمدا يا دين إلهي وبحيه أو عدسيه أدونك مركز لتشوغة تاسا وقوين waxa markaa macquula wax la fahmi kara ah masiibo dhacdaana inay tahay masiibada ugu weynata diinta kaaga dhacda maadaama nicmooyinku ay kala waaweynayeen oo nicmadii ugu weynayd ay tahay nicmo diineed masiibada ugu weyne qof bini aadama ku dhacdaana waa masiibada diinta kaga dhacda masiibadaasi diinta ku dhacda waa waxaan kabninshiya lahayn calaamaadkeeda waaweyn ee lagu gartaana waa iyadoo ziyaado dabadeed nuqsaani kugu bilaabanto ama hanuun dabadeed dalaal kugu dhaco ama basiiro dabadeed indhala-aani kugu dhacdo iyadoo diinxuma ku qabsato ilaahay subxaanahu wa tacaalana qur-aanka in badan buu markaasi kaga warramayaa nicmadaas iyo intay laegtay nicmadaa haddaad weydo dee hoogga rasmiga ahi waa yada waayo aakhiraad waayaysa waxa kaloo dhammina khasaare maaha qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy kuwa khasaaray waa kuwe aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan almubiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala kuwa khasaarayuun waa kuwa qiyaamaadee hooga ee nafya reerba waaya alaa dalika huwa alkhusraan almubiin baa ilaahay leeyahy war hooyay kaas baa ah maxay khasaaraha cad waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw biالsabr rabbiga weyne subxaanah wa tacaala intuu dhaartayba wuxuu tilmaamayaa bini aadamku inuu khasaare barhtankii ku jiro marka qura uu ka baxa inay tahay afar shay marka la helo iimaan iyo ku dhaqankii iyo sheegistiiyo dadka loo sheego iyo dhibta kaa soo gaadhoo lagu sabro aliimaan walcamalu الصaalix watawaasi bilxaq watawaasi bisabr sida awgeed baa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa dadkiisa saalixiinta iyo awliyadiisa ducooyinkooda waxay ahaayeen markii rabbi ka warramay zayqa iyo shubahaadka iyo waxyaabaha ku dhaca dadka badh ayaa ilaahay wuxuu ka warramoo kale kuwa raasikhiinta fil cilmiga ahi
inay yihiin kuwa waxaasi ka badbaadaya. basharku sidiisaba fitnada diinta waxay yidhahdaan dadku, imaam ibnu alqayim baa wuxuu leeyahy dadku waa saddex kooxood, waa raasikhiin, caamo iyo qolo meel dhexe joogta buu leeyahy. raasikhiinta buu leeyahy fitanka diinigaahi kuma dhaco, caamaduna waa cidda hogaamisa uun. qolada ugu badanee fitanka diinigii ku dhaco waa kuwa caamadana ka soo koray, rusukh filcilmigana aan gaadhin. ilaahi subxaanaه wa tacaala kuwa raasikhiinta wuxuu ku tilmaamaya ducadoodu inay tahay rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma inaka anta alwahaab. ilaahayow qalbiyadayada ha weecinin, waan balaayana haleelin bacda id hadaytana, markaadna hanuunisay kadib intaanu diinta qabsannay oo ku dhegnay ilaa waanay faraha yaga ka bixin. ee kuwa siday u rumeeyeen ugu dhaqmoo xejista ilaahayow naga dhig oo agtaada dhankaaga naxariis naga sii, adiga ayaa naxariis badane. hadday dadku dareemi kari waayaan markaa nicmada diintu inta ay leeg tahay, si fudud bay uga baxdaa. runtii dee waa kii xadiidkii saxiixa nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, qofkay salaada casar dhaaftaa fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluh. salaad casarkay dhaafta buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, wuxuu la mid yahay qof dad iyo duunyaba hoogay. haddii nin masaajidkeenna ka tirsan aynu garanayno la yidhaahdo galabta reerkii iyo ciyaalkii iyo adduunkiisii iyo wixiisiiba baddaa liqday, marka bay saarayno wixiiba badday liqday, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun baynu wada odhan lahayn. aad baynu uga nexi lahayn, waayo ninkaasi masiiba u soo hoyatay baynu odhan lahayn. dadkii iyo dunyadiiba way iska raaceen, labadiiba balaaya kaga wada dhacday baynu odhan lahayn. nebi moxamedna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, salaada casar qofkay dhaafto waa fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluh, waa nin dad iyo duunyaba hoogay buu la mid yahay. idan ikhwatii fi lcaqiida, musiibo kastoo kale agta waa fududahay. qur-aanka rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu inagu tusaaleeyey mid aqoon la siiyey oo diinka wax ka fahmay oo dabeetana ka siibay oo nolosha kale ka doortay. ilaahay baa subxaanah wa tacaala markaa qisadiisa intuu soo arooriyey nebi maxamed amray inuu dadka u sheego oo weliba ku gebagabeeyo faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina baa ilahay yidhi, waxaad dadka ku kor akhridaa warkii kii aanu aayaadka iyaga wax ka siinay baa ilaahay yidhi. qof kasta oo mu'mina oo diin fahmay ilaahay aayaadkiisa wax laga siiyey. dabeetana haddaad diin dabadeed ridda kugu dhacdo, ama diin dabadeed nuqsaani kugu dhacdo, ama diin dabadeed aad diin la'aan u baxda, waa balaayo. kaa warkiisa u akhri baa ilaahay yidhi, fansalakha minha faatbacahu shayطaan fakana min alghaawiin. oo fansalakha ka siibmay baa ilaahay leeyahy. insilaaq waa haragga iyo maxay neefka marka la kala siibayoo kale, kaannamaa diintu waa maca alfitra, waa kugu dhegsan tahay, waa fitra alla kugu abuuray. diin la'aanta markaad u sii baxaysa waad siibmaysaa, waad iska mudxinaysaa. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala, kaanu aayaadkayaga intaanu wax ka siinay dabeetana ka siibmay oo faatbacahu shayطaan, shayطaan dabagalay. shaydaan dabagalayda culimmada qaar baa waxay yidhaahdaan isagii baaba macallin noqonaya kani. haddaad aragto mid wadaad ahaan jiroo diinta ka tegey, waa shaydaan rasmiya buu noqdaa, isagaa macallin ah. ibliiskaba isaga ibliis dee nin cilmi la unbuu ahaayo dabeetana diin la'aani ku dhacday, sacankaa maaha, waa caalim lumay ibliis. wadaad kitaab akhriyi jira oo kitaabka ka tegay haddaad aragto oo kolba baabka baatilkaa u furaya dadka, waa uun ibliis kalu noqonaya. shayddaamadu isagay sheekhba ka dhigtaana way dabagalaan bay idhaahdaan. ama maahee qofku markuu diinta ka figayo, waa inamaa yaakulu di'bu min alghanami alghaasiya, cidlu uga baxay jamac iyo jamaacaadkii iyo ummaddii diinta haysatay, dabeetana shayddaan baa isaga cagta u saaro ku daba jira. ilaahay wuxuu leeyahy fakana min alghaawiin, ghaawintu ka mid noqday. daalliinta iyo ghaawinta culammadu waxay dhahdaan, daalka waxaa la yidhaahdaa qofka lumay
maca jahlihi gaawigu laakiin waxay yidhaahdaan waa maca cilmihi ka lumay isagoo garanayay haddana derdaraya dhinac maray kaasaa gaawiya bay yidhahdeen ghawaaya waa taas bay yidhahdaan ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walow shi'naa larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi wattabaca hawaah ilaahay wuxuu leeyahay haddaanu rabno diinkaanu kor ugu yeelahay diinta kor bay u qaadaa qofka rabbigiibaabay ku xidhaysaaye laakiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala kani walakinahu akhlada ila alardi isagaa dhulka kan badhuudhsado isku nabay halkii kor loo qaadi lahaa ayuu dhiidhiga isku nabayaa beerku dhulka ku hayaabaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala akhlada ila alard oo watabaca hawaah naftiisu waxay doontuu raacay sharcigu wixii uu amrayay buu diiday bal kan tusaalihiisa u fiirso rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala famahaluhu kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath kani eyguu la mid yahay baa la yidhi eygu hal mas'alo oo xayawaanka kaga gedisan yahay baa jira xayawaanka kale marka la eryo ama ay daalaan ama haraadaan bay haraariyoodaan haraaryada soo ma taqaaniin ay carabka laalaadiyaan oo neef kudiyaan eyguse hadduu iska fadhiyana wuu haraariyoodaa haddii la eryana wuu haraariyoodaa isagu haraaryadu kuma tusayso inuu daalay ama haraadan yahay ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kani ey buu la mid yahay eygaa haddaad eridana wuu haraariyoon hadduu fadhiyana wuu haraariyoon kan waayo kani de isagoo diinta garanayuu dhinac maray haddii qur-aanka lagu akhriyana wuu haraariyoon haddii laga daayana wuu haraariyoon isagu mar kastaba isagu diin la'aan buu doortay xaggu u cararay marka aayaadku ma anfacayaan labadiisa xaalaba waa isku mid isagu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dalika mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun baa ilahay yidhi kaasi waa tusaalihii kuwii aayaadka iyaga beeniyey baa ilaahay yidhi dadka qisaska qur'aanka ku soo arooray u sheeg baa ilaahay leeyay nebi maxamed dadka u sheeg qisaska kan waxay mudan yihiin inay fakaraan maxaynu akhriyaynaa lacallahum yatafakkaruun baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala saa'a mathalan qowmi aladiina kadabuu biaayaatina waanfusahum kaanuu yadlimuun man yahdi illahu fahuwa almuhtadi waman yudlil faulaa'ika hum alkhaasiruun ikhwatii fi lcaqiida hadafka ugu weynee shaytaan iyo cadow leeyihiin waa maxay yacni ahdaaf marxaliya baa jira laakiin hadaf kama dambaysaa jira goolka ama yoolka kama dambaysta ee uu shaytaan rabaa waa maxay waa inuu inaga yeelo asxaabu saciir sacinkaa maaha hadafkiisa kama dambaystii waa inuu diin la'aan inoo saaro waa yarudduukum can diinikum in istataacu markaad diinta iibsato waxaad xaqiijisay hadafkii ugu dambeeyey ibliis lahaa waxaynu u baahanay markaa inaynu dadaallo oo ku dadaallo inaynu ilaalinno inaan masiibadu inagaga dhicin xagga diinta nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka saxiixu muslim warinayo abu hurayra warinaya saxiixu muslimna soo saaray imaamu muslim baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci alleyli almudlim يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا نبي عليه الصلاة والسلام حلي ورعماشة صالح ونكسن أدق دقا انت أنا إذن كوي منين محي فتن امتحانات فتن كاسو الله مدبالي كقطع الليل المظلم هبينك قبل كيس مدوبة ليلي مظلمة midaan dayax jirin habeenka qaybtiisa madoobe maxay caan ku tahay haddaad gudcur madow lugayso maxaa jira dee waxba arki maysid ninka gudcur lugeeya habeen gudcuroo madow oo daruuro cirka jirto ama roobabaal jiraan oo waxba aanad arkaynin haddaad socod bilowdo maxaa kugu dhacaya waxaa kugu dhacaya inaad undee addinka iskaga nasiibiso meel halkaad addinka dhigaysa garan maysid ma god baad ku dhici ma abaysaad ku joogsan ma qodax baad cagta ku sii wadaa ma garanaysid waad iska u nasiibinaysaa fitanku wakhtigay nool yihiin haddaad noolaato fitanka dadka ahlulcilmiga ee raasikhiin filcilmi ah way kala gartaan xaq iyo baatilka qolada laakiin kitaabada waxoogaaga bowsatiya caamadu waxba uma kala baxaan
beledu markay dabar jeediso ayuun bay yidhahan war malaa sida kalaaba saxaasanayd ikhwatii fi lcaqiida adduunkan intaynu joogno marka waa imtixaamanay imtixaanku laakiin wuxuu u baahan yahay hubsiino wuxuu kale u baahan yahay doorashada inaad ilaahay la kaalmaysato wuxuu u baahan yahay inaad ilaahay barido nebi yuusuf oo ilaahay buu baryey rabbi sijn ilaahay buu baryayaa inuu sawaabka haleeshiiyo idan noloshan aynu ku noolay weliba casrigan aynu joogno waa casri imtixaanku tiro badan yahay waa casri xalaashii xaaraamtu isku walaaqantay sax iyo qaladku isku walaaqan yahay waxaynu u baahannahay diintu waa raasamaalkiiye inaynan ku khamaarin iyada inaynan balkeedin inaanad waxa ugu dambeeya ee nolosha aad ilaalisay inay diinta noqoto noloshaadu inay kuu yeelato herarkii ama kala korayn mudnaanshiiyo ay diintu tahay ka ugu dambeeya saa daraaddeed ka ummad ahaan waxa ugu weyn ee ummaddu ilaalisaa waa inay diinta noqotaa oo ummaddu markay fakarayso baarlamaankeeda madaxdeeda wasiiradeeda madaxweynaheeda aqoon-yahankeeda culamadeeda garaadadeeda iyo salaadiinteeda waxgaradkeedu markuu fakarayo kow waa inuu yidhaahdaa war waxaanay diinteenni muxuu yeelaysaa mar labaadkaa la isweydiinaya dhaqaalaha maxay yeelaysaa siyaasadda maxay yeelaysaa kan maxay yeelaysaa waa inay diintu mudnaanshiyaha koowaad leedahay ninka taajirka ahi waxa koowaad ee uu ka fakeraa waa inay noqotaa tijaarada tani ribaxa koowaadi muxuu diinta yeelayaa ninka baaca mushtarkaa ninka odaygaa ninka miskiinkaa qof wal oo muslimiba nolosha tan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy dhammaantii waa kala haysaan waxna waa wada gadaysaan baa la yidhi dhammaanteen waynu kalahsannay waxna waa wada gadaynaa ee waxaynu gadaynaa waa inaanay diinteenna noqon marka waa inay diintu noqotaa waxa ugu dambeeyey waa inaynu xisaabtannaa idan nolosha qofka muslimka ahi habeen kasta markuu seexanayo wuu xisaabtamaa wuxuu isweydiinayaa diintiisii war maanta maxaad khayra qabatay maxaad shari ku soo gaadhay haddaad aragta inay xaggii raasamaalkaba ku sii socoto intii waajibaadka inay tahay inta nuqsaantu ku sii socotaa dee waxay u baahan tahay to switch inaad nolosha xagga kale u gedido inaad wax beddesho majaalistaad fadhiisan jirtay beddeshaya asxaabtaadii beddeshaya wax kala beddeshaya inaad wax beddesho wakhtigaad wax qaban jirtay beddeshaya waayo haddaad aragto meesha nuqsaantu ku socotaa inay tahay diintii marka kan waa raasamaalkii tijaaradani markaa sii socon mayso waa inaad dib u xisaabtantaa dariskeennu markaa waxa uu sheegayaa inaynu ducada saalixiinta ee qur-aanka ku soo aroortay rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana ducadaa nebi maxamed inooga tegay calayhi salaatu wasalaam laa tajcal musiibatana fii diinina inaynu si fiican u fahamno waxaynu u baahannay inaynan markaasi bacda hadyin dalaal ku noqonin inagoo hanuun hellay dib inaynan u guranin inagoo ziyaado hellay nuqsaan inaynan dib u gelin inaynu xisaabtanno aad xisaabtanka ugu darro inaynu tijaarada hore u sii wadno mooyaane inaynan dib u noqonin وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين